runtii aniga kulli aad iyo aad aan u faraxsanahay waxaan u faraxsanahay kow wafdi waxa la socda oo madaxweynaha dawladda galmudug uu wado oo uu hogaaminayo Axmed Cabdikaari Qorqor ilaa dhowr safar soo socday golol yimaado afraaq yimaado waa farxad gooni oo saa'ida ayaduna wax aad loogu farxo oo aad u qiimo badan waxa weeye waxa golol waa meesha ku dhashay ay qiimo gooni ay leedahay hadda waxa ka muuqda isbeeyal cusub muuqda niyadda dadka muuqata in dad soo laabteen muuqata waxaas oo waxay keenayaan horumar aad u sareeya gaar ka faa'iideysanaya kaamirada iyo telefishinka dadka dibad jooga aanu aan ka mid ahaan jiray diasporada runtii ammaan yihiin oo guryahan quruxda badan ayaa dhisay aad niyadu hayaan laga yaabaa inay macnaha ay u arkayeen guryaha markii la dhisay dad badan ay lahaayeen maxaa ayaa ardayga saxanaya maanta kaliya madaxweynaha iyo waftigiisa quruxda iyo nidaamkii lagu wajahay ayaa wuxuu ahaa wax oo maaragtay aad iyo aad u qiimo badan oo wax loola yaabo ah waxaan leeyahay guryaha badiya waxaan leeyahay iskuulada badiya waxaan leeyahay soo noqdo adigu guriga ka dhista dadka hadda ku hawlan waxaan ogahay dad badan inay ku hawleeyeen inay guriga dhistaan ruuxantii aad iyo aad xilliga ugu habboonaan dawladdu waxbay ka qabanaysaa intaan dawladdu ay joogtana wax weyn laga bedelay waan arkaysay balaqaadyadii iyo farxadii madaxweynaha ka muuqatay qaabkii loo soo dhaweeyay qaab waxa cajiib ah oo maaragtay la dhihi karo arrin heer sare marka afraaqo waa aniga kulli taba marka laga tago ilmanimadaydi waa markii ugu farxadda badnayd saddex sanadood oo diaspora ku maqnaa saddex jeer nimid maalintii ugu farxadda badnayd way iyadoo madaxweyne la socdaa imaado iyadoo deganina imaado iyadoo aan la baqayna imaado iyadoo dhismo ka socda inay imaado iyadoo dad soo noqday inay imaado iyadoo dadka wada degan ay midaysan imaado waxaasoo dhan waxa weeye waa farxad lagu daray aad iyo aad u faraxsan dadka marka ay maqlaan wasiir Axmed Sharaf Falagle waxa taa wasiirka warfaafinta ee Galmudug dabcan marka la eego dadka marka wasiirada ka soo jeeda deegaanka waqtigan isbedelada iyo heerarka kala duwan ka soo martay deegaanka iyo waxyaabaha hadda laga filan karo maxaa nooga taban kartaa waxyaabaha laga filan karo waxa weeye xaaladda marka hadda qiimeeyno waxa muuqanaysa in dadku ay kalsoon yihiin waxyaalaha ugu muhiimsan ah hadda aan dareemo waxa kamid ah nabadda dhex taala dadkii halka ku dagaalami jiray oo aagan geedaha ku dagaalamay oo ayuu labada dhinac nabad qaatay dadka dawladaha jooga ama dawladaha ku jira ama siyaasadda ku jira labada dhinac ka dhashana aadan barashar waxa u saareynaa inaynu maaragtay aan wixii naga dhinto naga taacad ka imaan mar haddii dadku ay nabad u muuqato oo mar labad la dareemana sida saaka afar ka muuqata waa nabad dareen nabadeed muuqda mar haddii dareen nabadeed muuqdana dadkuna waa soo noqonayaan xooluhu iyo reemigu waa soo noqonayaan wax golol oo haddii ilaahay ku gawyaheeda ay dadku nabad ku wada yihiin haddii meelaha ugu sareeya ay ka tahay dalka Soomaaliya oo ugu quruxda badan leh oo ugu ciid wanaagsan ugu biyaha wanaagsan ومال تاريخي مركا هرمر ولا جرا وزيرك dadka intaan ogeyn mararka qaar kood xagga suugaanta waa isku fiicay markii la joogo meeshan oo kale isla markaana isbedeladan la dareemiyo kale suugaanta maxaa ka tiri markii farxaddu ka badato oo arrimaha jawi aan galabta ku jiro kala ah adka badanaabo igu noqdaa maxaan ku raahdaa mana aad u helo oo maskaxda waxa aad buuxinaya waxyaalaha kale laakiin mar haddii madaxweynuhu yimid waxa la leeyahay jawaagi dawladda ka ku jiri jirtay dadka heesaha iyo xaraaraha jireen ayaa waxa ugu soo dhacay hees ka mid ah heesahaas dawladda waxa la dhihi jiray tawradda marka tawradda taan barakaysan talaabadii ay qaadeen dadweynaha tii ka daryeeshe tabariya taagbaa qarabkiina taagane qoor baan taageersanay dawladda tan barakaysan ee Galmudug dadweynaha tii ka daryeeshe tabariya taagbaa qarabkiina taagane markii 500 santi wafdu madaxweynuhu hogaaminay afar ku yimaadeen taageero iyo farxad ku soo dhaweynaa dadka reer afraaqo iyo nawaaxigoodana waxa ay tuseen madaxweyne Qorqor kalgacaylka oo qaban iyo wanaaga madaxweynuhu wuxuu muujiyay socdaalka marka loo eego kalsooni iyo madaxweynuhu horeeyay safar intaas leeg tasoo gala gol yimaado
guulaysta ayaan leenahay tiimkiisa oo anuun ka mid ah wasiirka warfaafinta kalena waxaan naga go'an in deegaanada galmudug aan aad wax uga qabanno sababta loo xushaa saas ahayd xisaabtan baa jiri doona warku iska dhexma noqon doono marka afar waaqana waa la arka waxay tahay dhulka baaxadiisa dadka sharaftiisa dhulka quruxdiisa deegaanku habboonaantiisa khayraadka ka buuxa oo ugaar leh oo dunyo leh oo haddii la kula miraha xataa geedihii bira ku aragnay aad loogu xabanaya in macdan badan ay ka buuxdo shidaal badan ka buuxo waxaan leenahay gul iyo barwaaqo afar waaqo oo lagu guulaysto